wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Wafdiga wasiirka ayaa waxa soo dhaweeyay maamulka magaalada Marka uu horkacayay gudoomiyaha magaalada Marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka. wafdiga wasiirka waxaa ka mid ahaa wasiirada amniga, dhalinyarada, beeraha, wasiiru dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Cabdiraxiin Nuur. Intaa kadib wafdiga ayaa loo soo galbiyay xarunta maamulka magaalada Marka, waxaana halkaa warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha magaalada Marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Cabdiraxiin Nuur. dhammaan saacad wasiiryaal inta meesha isugu timiday wufuud badan ee maaragtay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee madaxdaayna maanta soo gaartay waan ku faraxsanahay markuu ugu horeyso saacad wasiir waxaan ku leenahay adiga wafdigaada ku soo dhawaada degmada Marka waxaad joogtaan Marka Cadeey min Abu Usmaan ku soo dhawaada markuu ugu horeyso marka xiga Marko waa nabad waa amni waa caafimaad waa degan tahay waxay idin leenahay sida sharafta badan quruxda badan ee aad noogu soo gaarteen aan maaragtay muxuu idin kaga mahad celihaynaa waxa ma hadaas iska leh dawladda Koonfur Galbeed ugu horeey madaxweynaha oo maaragtay maxaa la yiraahdaa inaad halkan soo gaartaan sabab u ahaa oo maaragtay howlihii as idin soo diray sidoo kale waxaan rabaa si kal ilaa baahina uu soo dhaweeyo gudoomiyaha cusub gudoomiyaha gobolka maxamed cabdiraxmaan inaan soo dhaweeyno maxamed cabdiraxiin ku soo dhawow Marka ku soo dhawow Marka Cadeey maamulkeeda ee kala duwan haday madaxda ciidamada ahaa lahaayeen hadii maamulka degmada ahaa lahaayeen haday ahaa lahaayeen muxuu heer gobol iyo heer degmaba inta meesha fadhado qof iskuma bari karno waqti kuleelna waa ku jirnaa waxaan rabnaa kaliya socdaalkii aad noogu soo gaarteen waxa idin kugu talagalnay halkaan ina idin keeno kadibna aan idin kugu celino bartiya idin dejin lahayn aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxa sharaf iyo qiimo iyo qaayo noo ah maanta in idin soo gaarno annagoo la soconay wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdigaas oo ku kooban intaas wasiir hadda idin sheegay iyo gobolka iyo degmooyinka iyo deegaanada Shabeellada Hoose kulley anoo ku hadlay magaca gudoonka gobolka waxa mahad iyo sharaf iyo ammaan aan u soo jeedinayaa gudoomiye Waafow gudoomiyaha degmada Marka iyo dhammaan ku-xigeenadiisa iyo intii la shaqeysay soo dhaweyntan diiradda leh walaaltinimada leh mas'uuliyadda ku dheexan iyo laamaha amniga iyo dhammaan saxaafadda saaka ilaa waqtigan ay noo istaagnaayeen say nagu soo dhaweeyaan caasimadda Shabeellada Hoose degmada Marka waxaad na tusteen dad jecel dawladnimada dad jecel kala dambeynta dad jecel martadooda inay intaqaana soo dhaweeyaan dad jecel inaad tihiin aan tusteen waana idinku aqiinay horaal idinku yiqiinay insha Allah bariyahan waa joogi doonaa wafdigan wasiirka hogaaminaya shaqay u yimaadeen annagana caasimadeyna maanta waxa waaye waa ka gobol ahaan maanta inaan wafdiga qayb aan ka noqono annagana markii noo horeysa imaanana sharaf ay noo tahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay joogi doonaan magaalada Marka isagoona kaga mahad celiyay maamulka magaalada Marka iyo guud ahaan bulshada sida diiran oo ay u soo dhaweeyeen salaan kadib aad baan u faraxsanahay inaan soo gaarana degmada Marka xarunta gobolka Shabeellada Hoose wafdigan oo isugu jira wasiiro gudoomiyaha gobolka ku-xigeenadiisa qaar ka mid ah iyo saraakiil kale oo dawladda ka socota oo taliyaal ciidan ah oo taliyaha booliska Koonfur Galbeed iyo taliyaha nabad sugidda Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale bay nala socdaan wafdiga dadka inta badan waxaan u maleynayaa dhowr jeer aan soo laabtay in almost ay dadku ay barteen aniga wasiirka arrimaha gudaha ah
iyo wasiir Isaaq oo wasiirka amniga koonfur galbeed wasiir Najax si fiican u taqaanina wasiirkiina gudoomiyaha gobolka uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha sidoo kale si fiican u taqaanina iyo wasiir Maxamuud oo wasiir dawlaha madaxtooyada taliyana si fiican u taqaanin iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka iyo taliyana wasiirka koonfur galbeed oo hadda halkan fadhin waa ku faraxsanahay soo dhaweynteena mudane gudoomiye waa ku mahadsan tahay adiga iyo maamulkaada guud ahaan iyo odayaasha dhaqanka hooyooyinka iyo dhalinyarada soo dhaweyntiina sharafta badan aad ku qiimaha badneed oo idinku naqaanay dhowrka jeer aan halkaan imaanay oo mar walba aan soo laaban ay ka muuqato dawladnimo iyo horumar ay ku tallaabsanayso degmada marka waad ku mahadsantihiin adiga iyo maamul ahaan iyo laamihii amniga ciidamada kala duwan ee amniga ciidanka xoogga nisa iyo booliska iyo ciidanka amisoomba wada shaqayntiina iyo u adeegida shacabka aad u haysaan waa ku mahadsantihiin waan ku mahadsantihiin in badan inaan sugayseen oo ilaa iyo saaka aad joogteen haddana xilli galab la joogo waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarno wafdiga shaqo halkaan yimid maalmuhu joogi doona insha Allah taala kulamaan wada qaadan doona maamulka iyo shacabkaba insha Allah si gaar ah isu wareysan doona Aways Muumin Xasan Aways okay raadiyaha iyo telefishinka koonfur galbeed gobolka Shabeellada Hoose Marko